afhayeenka guud ee xisbiga talada Somaliland haya ee kulmiye Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni oo la hadlay maanta telefishinka Home Cable waxa uu ka xog waramay halka ay marayaan dadaalada xisbigaasi uu ku doonayo in uu ku qabsado shirgudoonka aqalka golaha wakiilada Somaliland maanta waxa gobolka Gabiley xaruntiisa Gabiley loogu sameeyay harimo sharafeed Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo horeyna u ahaa wasiirkeennii hore arrimaha dibadda imikana mudane u soo baxay golaha wakiilada isla mar ahaantaasina musharax u taagan gudoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee shanta soo socota sano taasna aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa madaxda gobolka Gabiley iyo mudanayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka Maroodi Jeex iyo mudanayaasha maanta intii waqti u helaysay haleeshay kulankaasi qadada aan xaadirtayna iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa run ahaantii casuumaduhu ma noqon doonaan maanta midii ugu horeysay balse waxay noqonayaan kuwa istaba jooga oo ilaa iyo inta laga gaarayo maalinta la dhaarinayo kolba gobol iyo degmooyin dadku ay u riyaaqsan yihiin Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon iyaga oo dadkuna waxa weeye ay aad iyo aad u soo dhaweeyeen khudbadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu maalintii dhaweeytay mudanayaasha u soo baxay xisbiga kulmiye uu kula kulmay isla mar ahaantaasina uu cadeeyay in uu madaxweynaha qaranka hadii uu isagu yahay iyo gudoomiye xisbi ahaanba iyo xisbi kulmiye ahaanba aanu dhisayno Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo maanta ninka ku haboon inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ee shanta sano ee soo socota taasoo lumida waxaanu filaynaa mudanayaasha xisbiyada mucaaradka ka soo baxayna inay u riyaaqsan yihiin qaarkoodba maanta marka ay arkeen miisaanka uu leeyahay Faratoon ee indhaha laga qarsan karin in uu kursigaasi waxa weeye ku fadhiisto oo uu hogaamiyo iyadoo oo cugashada iyo waxa qaranka Somaliland ugu dabaaldegayo waxa weeye xulashada Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ay tahay wixii qaranka Somaliland uu gashaday in maanta waxa weeye uu hago way aragnimadiisana waxa weeye qaranka Somaliland uga faa'iideeyo mudanayaasha waxa weeye qaarkood ay u badan yihiin maanta waxa weeye rag saaxadda siyaasadda ku cusubna uga faa'iideeyo taasna waxa weeye xisbi ahaan sharaf weyn bay noo tahay waxaanu cadeynaynaa in maanta harimo sharafeedkaasi gobolka Gabiley loogu sameeyay mudanayaal waxa weeye tiradii waxa weeye xisbiga kulmiye u soo baxdayna intii haleelaysay ay qadadaasi xaadirtay dhinaca kale afhayeenku waxa uu isdul taagay hadal dhawaan ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe waxa maalmahan kulamo istaba joog u socdeen labada xisbi mucaarad runtii annaga horaan mowqifka xisbiga kulmiye loo cadeeyay uma aragna annagu waxa weeye wax dhibaato ah wax allaaliya waxaan ka qabnaanay ma jirto laakiinse waxa saa'ida in marka ay kulamadoodaasi ay qabsadaan inay gafaf ama khaladaad ay galaan kuwa aan noqoto Ilaahay ay ka galayaan iyo han noqoto kuwa ay waxa weeye ummadiisaba ay ka galayaan mudanayaasha la soo doortay saddexda xisbi qaran annagu xisbi ahaan sharaf baan noo haynaa xisbi aanu ku tilmaamayno in mudanahiisa la iibsanayo ama umana qalmo waxaas oo kalena wax afka madaxda qaranka xisbigu doonaha ahaatee inuu ka soo baxa ay tahay maaha aad baan xisbi ahaan uga xunnahay ragga waxaasi lagu dacaayadeeyay ee ka soo baxay labada xisbi mucaaradna waxaanu run ahaantii arintaasi apologize baanu ka siinaynaa waxaanu ka siinaynaa isticfaaf baanu ka siinaynaa raali gelin baanu ka siinaynaa waxaanu leenahay inniimo qalanto waxa ragga xisbiyada aad ka soo baxdeen madaxdooda inagula kiceen wax maaha inni kufkiinana maaha wax inni qalmana maaha gafafka kale khaladaadka waxa weeye ay Ilaahay iyo ka galayeen waxay ahayd in maalin dhaweeta ay sheegeen inay u mahadnaqayaan shaydaan ay u mahadnaqayaan Ilaahay baan subxaanahu wa ta'ala inoo sheegay in shaydaanku uu cadow inoo yahay quraankiisuna Ilaahay ku sheegay annagu se waxaanu u mahadnaqaynaa hadaan xisbiga kulmiyanahay in maanta Somaliland doorashooyinkaas ku sidkan ay nabad ku soo gaadho oo ay ku soo gaadho waxa weeye caafimaad qab bulshadeeda ku soo gaadhaan oo bulshadu xaqiijiyaan go'aano masiiriya oo ay xaqiijin jireen awal in ay maanta soo gaadhaan aad iyo aad baanu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga mahadnaqaynaa waxaan leenahay Ilaahay u toobad keena afhayeenaad yaad bad mahadsan tahay su'aasheedii koobaad waxay tahay eedda la xidhiidha in aad lacag bixinaysaan laaluusha waxaa idinku eedeeyay laba xildhibaan oo aqalka golaha wakiilada ka tirsan
oo mid sheekh yahay sidoo kale waxa arintaasi soo hadal qaaday sheekha weyn ee sheekh dirir oo waxaad leedahay arrimahaasi waxba kama jiraan aad iyo aad baad xasan u mahadsan tahay inta aad sheegtayba waanu dhageysanay khudbadahooga haddaan ku horeeyo ninka xildhibaanka ah ee aan weli la dhaarin ee soo baxay ee shirka jaraa'id qabtay wuxuu isagu sheegay in lala soo xidhiidhay muu sheegin cidda la soo xidhiidhay balse wuxuu sheegay in waxa la leeyahay buuri taasna waxaan u aragnaa run ahaantii dee waa ku turkuteen weeyi wuxuu sheegayaa in telefoonadiisii oo dhan uu xidhay telefoonkiisana haddaad u fiirsato markuu soo qaadayo uu dhacaya dee intaasaaba been kuugu filanba marka taasi waa taas waxa weeye wadaadka ka hadlay masaajidka isaguna ee sheegay in aswaad la iibsanayo oo waxa weeye malaayiin ay marayso codbixintu run ahaantii waxaan maan jeclayn inaan run ahaantii waxa weeye in aan u dhaafan jeclaa wasiirka diinta ee awqaafta intuu ka yidhi laakiinse waxaan u sheegaynaa maanta waxaad soo gashay saaxadda siyaasadda waxaad ka mid tahay mudanayaasha golaha wakiilada haddii sharciyan sidaasi lagugu dhaariyo oo ay kuu dhammaystiranto xildhibaannimadaadu siyaasaddaad soo gashay dee mimbarka horta inaad iskaga daadegta ahayd maadaama marka horeba aad sheekh ahayd shacaa'irtii ilaahay ku siiyeyna oo garhkuu ka mid yahayna aad lahayd balse maalintii aad u soo baxday eed xildhibaan noqotay ayaad garhkii xiirtay marka horta diintaad sheegayso waxa ka kugu filan inaad adigu naftaada ku dabaqdo oo xildhibaannimada iyo siyaasadda aad soo gashay aanay masaajidka kaa saarin waxa weeye sidii awal baad khadiibka masaajidkiisa jooga ka khudbaday masaajidkiisa ka khudbadeynayaa laakiin isagoo garhkii xiiro ka khudbadeynayaa taasina ma aha midda kale wuxuu isagu ka mid ahaa dadkii jaadka bixinayey ee markuu ololeynayey markaa bal tii uu shalay bixinayay inay xaaraan tahay inay xalaal tahay dadka ha u sheego su-aasha u dambaysa shirgudoonka gudoomiyaha golaha wakiilada ciddii idinku sharaxaneed waad sheegteen waa faratoon labada ku xigan waa kuwama waa arrin xisbina ma rabo inaan kasii hordhaco kan kaleba Soomaalidan soo bandhig yaasiin xaaji maxamuud fixiir faratoon waa gudoomiyihii golaha wakiilada ayaanu u soo saarnay dhawaadna labada ku xigeen waanu sheegi doonaa laakiin sagama sii hordhacay suurtagal ma tahay inaad xisbiyada mucaaradka qaar ka mid ah dabada ka riixdaan si ay shirgudoonka iyaguna u tartamaan waxaanu kuu ognahay oo aanu kuu sheegaynaa in dhammaan mudanayaasha soo baxay ay xaq u leeyihiin inay tartamaan qaanuunkaana siinaya cid laakiinse annagu aan dhabar taabanaynaa ma jirto umana qalmaan in la idhaho la dhabar taabanaya xasan suleymaan haaruun xasan galaydh wararka on cable hargeysa